kani waa wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka waana ninka ugu dhow madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inta badan waxa uu la hadlaa warbaahinta reer galbeedka marka la joogo arinta Ukraine iyo arrimaha kale ee ku saabsan Ruushka hadaba ninkan ayaa mar su'aal weydiiyay ee ku saabsan dagaalka Ukraine inay dadka inta badan welwel ka qabaan ayaa yiri hadalkan ayaa noqday mid ay dadka aad u buunbuuniyaan oo meel walba la wareejinayo mar walba internet ku dhex jirtana ka hor imaanaya hadaba balan isla dhageysano hadalka uu leeyahay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov waxa uu leeyahay balageyso waa hadal aad u la yaabi doonto ku cajabi doona si kalena hadaan u dhahnana hadal xaqiiqda ka turjumaya laakiin asaga markaas waxay ka tahay isdifaacitaan oo maxay anaka nolo fiirinaya kaliya ma la fiiriyo Mareykanka looma jeedo ma qaladaadku Mareykanka sameeynaya iyo dawladaha weerarayo maxaa kaliya loo arkaa marka Ruushku uu dawlad weeraro arintaas ayuu rabaa marka inuu dadka tuso oo yiraahdo bal Mareykankana ma aragtaan oo arintaas ka qeylidaan arintaas ayuu rabaa dadka inuu tuso oo yiraahdo ma dhiiga bini'aadamka ayaa kala xurmo badan maxaa loo fiirinayaa kaliya kan Ukraine bal aan hadalkiisa wada dhageysano iyo waxa uu leeyahay aad baad ula yaabi doontaa bal kadib markaad hadalkiisa dhageysato commentiga noogu soo qor waxa ay kula tahay arintan iyo hadalku sheegayo in ay tahay mid xaqiiqda ka turjumayda iyo in kale bal maxuu leeyahay aan wada dhageysano waxa uu leeyahay hadii aad jiifa karin sababtuna ay tahay in Ruushka uu weeraray Ukraine aan ku siiyo tala ku anfici doonta waxaan ku leeyahay isdeji waxba welwelin marka hore suurayso ama ogow in arintan oo kale ay ka jirto Afrika sidoo kale suurayso ama ogow in arintan ay ka jirto bariga dhexe waxa sidoo kale waxa suuraysataa ama aad ka soo qaadaa in Ukraine ay tahay Palestine sidoo kale ayadana waxa suuraysataa in Ruushkana uu yahay Mareykanka waa intaas leh wax kale ma jiraan maxaad isku dhibeysaa waa intaas marka hadalkiisa hadaan wax yar sii faahfaahin wuxuu kala jeedaa sidaan ognahay Yahuuda oo Mareykanka uu taageero waxay aad dib ku hayaan Falastiiniyiinta marka wuxuu leeyahay caalamka arintaas uma jeedo dibka Falastiiniyiinta lagu hayo laakiin wuu arkaa dibka lagu hayo Ukraine marka wuxuu leeyahay waxaad ka soo qaataa in Ruushku uu yahay Mareykanka Ukraine ay tahay Palestine hadda arintaas aad ka damqanin Falastiiniyiinta dhibaatada lagu hayo ma ahan in ka damqato midda Ukraine maxaa yeelay waxba kama duwana labadoodu waa bani'aadan haddaad mid ka damqatana waa inaad midda kale ka damqataa hadalkan asaga markaas uu lama jeedo inuu Falastiiniyiinta u naxayo waxa uu ka wadaa inuu asaga isku difaacayo dagaalka uu weeraray Ukraine waan ognahay Mareykanka iyo Ruushka uma kala roon Falastiiniyiinta oo mid gooniya maantay Falastiiniyiinta u dirnaxay ma jiro laakiin si uu isku difaaco oo dadka kale u tuso in Mareykanka uu dhibaato u sameeyo dhibaatadiisana aan loo jeedin ayaa waxa uu leeyahay hadda waa ka Mareykanka ma aragtaan asagoo taageeraya Yahuuda ay dhibkaani wuxuu ka jiraa kana socdaa Palestine wuxuu ka socday oo horay uga jiray Afghanistan oo Mareykanka naftiisa uu ku jira markaas arintaas uu kala jeedaa waan isdifaacitaan mar walba oo arinta Ukraine lagu soo hadal qaadana inta badan Ruushka ayagana wax soo hadal qaadaan Mareykanka waxa uu weeraray Iraq Mareykanka waxa uu weeraray Afghanistan hadaba markuu Mareykanku weeraray Iraq iyo Afghanistan saan looma buunbuuninayni maxaa loo buunbuuninayaa weerarka aan ku qaadanay Ukraine markaas ay leeyihiin Ruushka isku difaacayaan mar walba in weerarka ay ku qaadeen Ukraine oo yahay mid ay ka isku difaacayaan xoriyadooda madaxbanaanidooda ku difaacayaan saas bay mar walba isku difaacaan Ruushka inta badan waxay leeyihiin haday noqoto dawladda iyo haday noqoto aqoon-yahanada mar walba waxay leeyihiin kaliya maxaa loo arkaa qaladaadka anaga aan sameeynay Mareykanka qaladaadkiisana waa in la arkaa oo dunida kale ay ku baararugtaa kaliya ma keen in la fiiriyo marka bal aragtidaada nala wadaag arintan iyo waxay kula tahay waana mahadsantahay daawashada muuqaalkani aad baan u mahadsan